maxkamadda caalamiga ah ee dunida ayaa dhageysanaysa maanta dacwadda badda ee Soomaaliya. Dacwadan ayaa waxay u dhaxaysaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dowladda Kenya oo xilligan Soomaaliya ku haysata badda. Qareennada matalaya Soomaaliya ayaa maanta waxay gudbin doonaan doodooda ku aadan muranka badda. Dowladda Kenya waxay shalay shaacisay inaysan marnaba qayb ka ahayn dhageysiga dacwadda ee maanta ka bilaabanaysa maxkamadda ICJ. sida ay warbaahinta Kenya ku warantay, dowladda Kenya ayaa sabab uga dhigtay arrintan inay ka cabanayso in maxkamadda aysan si xaq ah ula dhaqmin Kenya iyo in maxkamadda aysan doonayn inay tixgeliso codsiga Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga kiiska iyadoo sabab looga dhigayo waxyaabaha la xiriira caabuqa dunida afiyay ee COVID-19. Isniinta oo maanta ayaa la filayaa 3 galabnimo ilaa 6 maqribnimo in qareennada Soomaalidu ay gudbiyaan doodooda. Sidoo kale waxaa qareennada Soomaalida ayaa waxay qaadi doonaan tilaabo talaadada. Waxay qareennada Soomaalida talaadada 16 bishan March 3 galabnimo ilaa 4 iyo barka mar kale maxkamadda u soo bandhigi doonaan doodooda. dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dalka Kenya ayaa waxay heshiis isfahan ah oo la xiriira xadka badda ee labada dhinac kala saxiixdeen 7 bishii Abriil 2009. heshiiskaasi waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay wasiirkii qorsheynta ee iskaashiga caalamiga ah ee xilligaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, xilligan ah hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadajir. sidoo kale Kenya waxaa u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee xilligaasi, waxaana tan iyo markaas heshiiskaasi aysan ku jirin wax la xiriira xadka badda, balse waxa uu dhigayay hanaanka loo mari lahaa in la xaliyo khilaafka la xiriira xadka badda ee labada dal u dhaxeeya. 1 Agoosto 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib si aqlabiyad ballaaran ah ugu codeeyay in la laalo heshiiska isafgaradka ah ee dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya. kulankan oo aan ahayn mid caadi ah ayay yeesheen baarlamaanka waxay gabi ahaan diideen in xitaa dood ku saabsan arrintan dib loo dhigo oo waliba wasiirka arrintan khusayso la siiyo fursad uu ku faahfaahiyo heshiiska. 13 bishii July ee sanadkii 2015, sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamadda inay dacwad u soo wado Soomaaliya, ayaa rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ICJ. xeerlaalinta Soomaaliya waa xeerlaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo la hadlay warbaahinno caalami ah ayaa waxa uu xilligaasi sheegay in arrintan go'aankeeda ay gaari karto kaliya maxkamaddaasi, halka xeerlaaliyaha guud ee Kenya ee xilligaasi oo isaguna warbaahinta u sheegay in Soomaaliya aysan xaq u lahayn in kiiskaasi ay geyso maxkamaddaasi. 18 Diseembar 2017 Kenya ayaa waxay xareysay jawaabta ay ka bixinayso kiiska Soomaaliya ee u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. xeerlaaliyaha guud ee Kenya ayaa waxa uu ku doodayay in maxkamadda aysan xaq u lahayn inay go'aan ka gaarto kiiskan, waxaana codsaday in arrintan ay labada dal ku xaliyaan wada hadal. Soomaaliya ayaa iyadoo dhankeeda bixisay jawaabteeda ku aadan codsiga Kenya ee maxkamadda ay dalbatay in arrintan dibadda maxkamadda lagu xaliyo. xeerlaaliyaha Soomaaliya ee xilligaasi Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto in maxkamadda ay tahay goobta kaliya ee lagu kala bixi karo, waxayna xukuumaddiisu diiday doodii Kenya ee ahayd in labada dhinac ay gaareen heshiis isfahan oo waafaqsan xeerka caalamiga ah, kaasoo ay tahay in Soomaaliya ay xushmayso. Soomaaliya ayaa ku dooday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama uu diiday baarlamaanka Soomaaliya ee xilligaasi. Febraayo 2018 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. xaakimiinta maxkamadda ayaa u codeeyay kiiska kadib markii ay heleen sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo waliba diidmada Kenya. 7 bishii Febraayo 2019 Soomaaliya ayaa waxay London ku qabatay shir ay ku sheegtay inay ku suuq geynayso shidaalka Soomaaliya,
wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo xilligaasi hadlayay ayaa waxa uu sheegay in goobta sahminta lagu sameeyay ay ka jirto qeybta badweynta Hindiya ee Kenya iyo Soomaaliya ayna ku muransan yihiin isagoo sheegay in Soomaaliya ay leedahay go'aanka la xiriira arrintaasi isla markaana maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ka soo saareyso go'aanka ku aadan arrinkaasi waxa uu sheegay xilligaasi wasiirku in Soomaaliya marnaba aysan diyaar u ahayn in ay maxkamadda ka soo saarto kiiskaasi 16 Febraayo sanadkii 2019 ayaa Kenya waxay sidoo kale la soo noqotay safiirkeedii Soomaaliya waxayna codsatay safiirka Soomaaliya inuu aado ee Kenya fadhiya in dalkiisa iyo Muqdisho dib ugu laabto wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaana sheegtay in shirkii shidaalka ee Soomaaliya ee London lagu xaraashay hantida shacabka reer Kenya taasi oo ay sheegtay inay tahay tallaabo aan loo dulqaadan karin waxaana taasi ay sababtay in cirka isku shareero khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale dowladda Kenya isla markaana dowladda Soomaaliya waxay qaaday tillaabooyin dheeri ah dhankeeda oo la xiriira saameynta kiiskan iyo waliba sidoo kale isfaham waaga dhinacyada ka dhex taagan waxaana la sheegay in xilligaasi wixii ka dambeeyay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ahaa mid cirka isku sii shareeraya khilaafkuna baaxadiisu ay sii weynaanayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay xilligaasi sheegtay in marnaba aysan diyaar u ahayn in kiiska dacwadda badda laga soo saaro maxkamadda caalamiga ee ICJ iyadoo Soomaaliya ay qaaday tallaabo la mid ah midda Kenya isla markaana waxay dowladda federaalka Soomaaliya dib ugu yeeratay safiirkeedii Nairobi iyadoo ka codsatay isla markaana ka dalbatay safiirka Muqdisho ee Kenya inuu dib ugu laabto magaalada Nairobi ee cariga waa Kenya waxaana taasi meesha ay ka saartay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay mar kale guud ahaan bajartay xiriirka u dhaxeeyay labada dhinac oo Soomaaliya iyo Kenya waxayna sheegtay in marnaba tillaabooyinka Kenya ay qaadayso aysan ahayn kuwa saamaxaya xiriir labada wadan ka sii dhaxeeya waxaana guud ahaanba xilligan xiran safaaradaha Muqdisho iyo Nairobi ee dowladaha federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale tan Kenya waxaana maanta la filayaa in maxkamadda caalamiga ah ICJ xaakimiinteeda ay dhageystaan dooda Soomaaliya ee ku aadan dacwadda badda iyadoo la filayo in Kenya ay sidaas uga maqnaato Kenyana waxay sheegtay marnaba inaysan diyaar u ahayn inay ka qayb gasho dacwaddaasi badda sabab la xiriira in Soomaaliya iyo maxkamadda caalamiga ah ICJ aysan tixgelin dalabka dowladda Kenya iyo waliba qaabka dowladda Kenya ay doonayso in ay u maareyso waxyaabaha la xiriira kiiskan iyo waliba sidoo kale tillaabooyin dheeri ah oo ay qaadi lahayd oo ka codsatay maxkamadda caalamiga ah ee dunida in ay tillaabooyin dheeri ah ka qaado. The second step of the process is the examination of the coastal geography for relevant circumstances that might warrant an adjustment to the equidistance line. In Somalia's view, there are none. The coastline is entirely regular without any anomalous features, and there are no offshore features that distort the equidistance line. The final step of the process is to assess whether significant disproportionality results from the equidistance line. As we have shown in our written pleadings, there is none. There is thus no reason to depart from or adjust the equidistance line. In Somalia's view, the equidistance line is the equitable solution that the law requires. Kenya, of course, would have it differently. It urges the court to depart from the approach followed in every recent maritime delimitation case by adopting as the boundary a line that follows a parallel of latitude rather than an equidistance line. Kenya's main argument is that Somalia has acquiesced in such a line. Madam President, Somalia has never agreed or acquiesced that the boundary should follow a parallel of latitude. Our council today will elaborate on what Somalia definitively showed in its written pleadings. Maritime boundaries cannot
as a matter of law be established through acquiescence. But even if this were possible under the law, it could not be the case here because the facts demonstrate that Somalia never acquiesced to Kenya's unilateral claim that the boundary was the parallel of latitude. Kenya's argument that the court should adopt the parallel of latitude as the boundary, even if Somalia never acquiesced in such a line. To reach this conclusion, Kenya would have the court dispense with the three-step method. Instead of that standard method, Kenya, in its own words, asks the court to apply a quote parallel of latitude delimitation methodology, end quote. This is not a methodology that has ever been recognized, let alone applied by the court or by any other international court or arbitral tribunal. We cannot help but believe that it has been invented by Kenya, it is made in Kenya for the sole purpose of justifying its claim. It's an obvious contravention that puts the cart before the horse. It presupposes Kenya's desired outcome, and it is highly prejudicial to Somalia. As such, it fails to produce an equitable solution as the law requires. Madam President, Kenya has not only claimed an extensive maritime area on Somalia's side of the equidistance line, but has also sought to exploit it. In particular, Kenya has authorized exploration activities, including seismic testing and drilling a well in the maritime zone claimed by Somalia. Somalia considers that these activities in a disputed area violate UNCLOS and customary international law. In its written pleadings, Somalia called for full reparation, including compensation for these violations. But we have come before this court in a spirit of peace and goodwill, seeking neither vengeance nor retribution. In this spirit, we have decided not to insist on compensation for past violations of our maritime rights. Madam President, members of the court, it is now my honor to lay out the organization of Somalia's presentations. Following me to the podium this afternoon will be Professor Alain Pellet. He will address Kenya's errors of law on the issue of acquiescence. He will show that it is not possible to establish an international maritime boundary by unilateral action. In the absence of an express agreement or a judicial determination, the establishment of a maritime boundary requires, at very least, tacit agreement. This, Professor Pellet will explain, is an exceedingly high bar to meet, and one cannot be met in the circumstances of this case. Professor Philip Sanders, QC, will then show why the facts do not support a finding that Somalia acquiesced in Kenya's unilateral declaration of a maritime boundary. The record is replete with contradictions in Kenya's position, including statements Kenya made in oral hearings before the court more than 4 years ago. Members of the court who heard Kenya articulate its preliminary objections in September 2016 will recall that Kenya took the view that the boundary remained to be established, not that it had already been agreed or acquiesced to. The argument that Kenya made before you then is directly at odds with the argument it makes now that a maritime boundary came into existence by virtue of Somalia's acquiescence. Building our house also means tending to our fences with our neighbors. We hoped that it would be possible to settle our dispute with Kenya bilaterally through negotiations. Unfortunately, that proved impossible. Our respective views were too different
and too firmly held. That is why we are here today before you. Unfortunately, some of our brothers and sisters in Kenya appear to misinterpret our actions. There are those who view Somalia's decision to initiate and pursue these proceedings as an unfriendly act. For example, at that time, these oral proceedings were initially scheduled to begin. The majority and minority leaders of the Kenyan National Assembly tabled a motion to, among other things, call on the government of Kenya to express to the United Nations the Republic of Kenya's protest against the assertion of jurisdiction by the International Court of Justice over the maritime boundary conflict between Federal Republic of Somalia and the Republic of Kenya. And explore other lawful and constitutional mechanisms for protecting the territory of the Republic, including deploying the Kenya Defense Forces to the subject boundary to undertake the responsibility of protecting the sovereignty and territorial integrity of the Republic. We understand that passions about border issues are easily inflamed, but the matter of delimitation of the maritime boundary between Somalia and Kenya has been entrusted to the judgment of this most distinguished court. The Charter of the United Nations compels all member states to resolve their disputes by peaceful means, including by judicial settlement. By presenting its application, initiating this case after negotiations failed, Somalia was carrying out an objective of the Charter by seeking judicial settlement of a dispute that the parties were unable to achieve on their own. And the court itself confirmed the priority of Somalia's recourse to judicial settlement when it agreed that it had jurisdiction over the case. This is as it should be, Madam President, because only with the court's assistance can the impasse be broken, a settlement be found, and legal certainty delivered. We are therefore deeply concerned that Kenya has decided not to appear at these hearings. In Somalia's view, this is inconsistent with Kenya's obligations under the Charter, the statute and rules of the court, and as a party subject to the jurisdiction of the court in these proceedings. It is also inconsistent with respect for the rule of law. Certainly, Kenya has no grounds to complain about its treatment by the court. Indeed, in Somalia's view, the court has been generous in accommodating Kenya. It granted 3 requests from Kenya to postpone these hearings for a total of 18 months. It allowed Kenya to submit more than 4 pages of new documents on the eve of these hearings, more than 2 years after the written pleadings in this case closed. The court even allowed Kenya to submit a 315-page supplemental legal pleading, which is not contemplated by the rules, barely 10 days before the start of the hearings. Kenya thus has been afforded due process in abundance. Fortunately, it is a regrettable decision to boycott the oral hearings cannot prevent them from proceedings.